shirkadda xawaaladaha lacagaha ee World Remit ayaa si rasmi ah waxay xafiis uga furatay Somaliland. maamulaha guud ee shirkadda World Remit Ismaaciil Ibrahim Ahmed oo ka hadlay kulan uu saxaafadda la qaatay ayaa ugu horeyn ka hadlay in uu aad ugu faraxsan yahay furitaanka xafiiska World Remit ee Somaliland. waxa kale oo maamulaha guud ee shirkadda World Remit ka hadlay adeeg cusub oo lagu daafuray xafiiska Somaliland kaas oo noqonaya in ku dhawaad 150 dal oo caalamka ku yaala aad lacag ugu diri karto Somaliland adigoo markaas isticmaalaya barnaamij casri ah oo ku shaqeynaya aaladda internetka. bilaabayna adeeg cusub oo dadka reer Soomaaliya suuragelay inay lacagaha u diraan in ka badan 100 wadan oo laga diro Somaliland. Somaliland waxay meeshii ugu horeysay inuu ka bilownay shirkadda World Remit oo markii ugu horeysay oo lacagaha soo diri jiray. adeegaas wuxuu imika noo socday muddo ku dhow 8 sanadood. marka maanta Soomaaliya waxay fursad u heshay inay noqoto wadankii ugu horeeyay Afrika aanu ka bilowno in lacagaha laga diro oo loo diro dibadda. imika lacagihii dibadda laga dirayay ayaa runtii aad u soo kordhay oo laban uga badan lacagta dibadda inooga timaada. lacagahaas oo inta badan yihiin ganacsi laakiin waxa jira lacag kale oo fara badan oo ganacsi ahayn oo dibadda loo diro oo ay diraan dadka reer Soomaaliyeed ee qurbaha ka soo noqday halkan soo shaqo tagay oo lacag badan dira. waxaa jira dad kale oo fara badan oo ajnabi ah oo runtii Somaliland ka shaqeeya oo lacag dib u dira. runtii taasi waxay muujinaysaa horumarka Somaliland gaadhay in maanta dibadda inooga soo shaqo tago oo lacag badan laga diro. marka adeegan aan sameeyay dadka wuxuu suuragelinayaa in meelaha aanu lacagta u dirayno ay si fudud account ugu dhacaan oo bank lacagta lagu shubo inay lacagta qofkii doonaya lacag ka shaqaadan karo in wadamo badan lacagtu mobile money ku dhacdo sida saadkoo kale warwada xiriir la leedahay lacag u dirtaa in ka badan 130 milyan oo mobile money accounts oo in badan Afrika tahay sida M-Pesa Kenya oo kale MTN Uganda iyo wadamo kale oo fara badan. dhinaca kale kulan casho oo loo sameeyay munaasabadda furitaanka xafiiska World Remit ee Somaliland ayaa ka qabsoomay Hotel Mansour halkaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socday laamaha kala duwan ee dawladda shirkadaha maxalliga ah ee dalka iyo marti sharaf kale. waxaynu maanta halkan ku daahfuraynaa shirkaddii World Remit. World Remit hore way u jirtay adduunka oo dhan way ka jirtay laakiin Somaliland maanta wax gaar ah u wadaa waxay u wadaa inay u sahlayso inay si fudud lacag uga dirsan karaan Somaliland oo u soo diri jireen dadku laakiin maanta waxaan u haynaa hambaliyo macaamiisha lacagaha ka dirsata ama ku hesha Somaliland inay lacagihii ka diri karaan ama ku heli karaan Somaliland sidii hore iyo si ka balaaranba. xawaaladu ama shirkadda World Remit waxa ay ku shaqaysaa digital cashless baanu nahay lacag ma qabano. sababtu waxa weeyaan waxaan u fudaydinay macaamiishayadii inay si sahlan wax u diri karaan ama u heli karaan. Somaliland waxaan si weyn ula shaqeynaa Telesom qaybta saadka oo lacagtu hadda ku soo gaadha lagana diri doonaa. shirkadaha kale ee maaliyadeedna waanu jecelnahay in la shaqeyno. adeeggan cusub ee shirkadda caalamiga ee xawaalada World Remit ay ka daafurtay magaalada Hargeysa ayaa wuxuu ku soo deegmayaa xilli ay ku sugan yihiin dalka ajnabi iyo Soomaali qurba joog tiro badan oo u baahnaa nidaam casri ah oo ay ugu diraan ehelladooda lacagaha ay dirayaan. muqtar cabdi rusciga TV-ga qaranka Somaliland Hargeysa.